السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو dhawaada channelka barnaamijkiisa caafimaadka ah. Waxaan idin soo jeedinaysaa anigoo Aaron. Maanta waxaan ka hadli doonaa tunta iyo dhaga xanuunka sida ay ugu fiican tahay. Sida uu qofka uu iskaga daaweyn lahay dhaga xanuunkii. Horta tunta maadooyin badan ku jirto. Maadooyinkaas oo kale waxaa ka mid ah antibacterial, antiviral properties wax la ayaa ka mid ah oo awood u leh inay dilaan bakteeriyada ama germska dhagaha qofka xanuunka u keeno. qofkii hadane gaalik waxay kaloo sii daaway kartaa infectionka dhagaha ku dhaco iyo dhaga xanuunka ay daaway kartaa dadka xoogaha si fiican wax u maqli karin sidoo oo qofkii u sameeysan karaa sida uu iskugu caawiyo daawadan dabiiciga ah wuxuu sameeysan karaa garlic oil sida naqaano meel walba laga helaa laakiin waxa fiican qofkii inuu sameeysto taas ayaana 100% guarantee u leh wuxuu sameey karaa qofkii 4 xabo tuun ay wuxuu ku darsanayaa 8 qaando oo olive oil ayuu digsi inuu ku shubo dabka saarnaay medium heat ay u geenayaa markii uu arko tuunti inay jilacday uu ka miirayaa den dhala ayuu ku shabanayaa mise meesha uu qofku uu rabo ayuu ku shabanayaa den qofku uu isticmaalayaa garlic oil kan waxay guarantee u tahay mise ay awood u leedahay inay disho bakteeriyadii mise germski qofkii dhagii ka galay qofkiina dhaga xanuunkii sidaas ay uga tagayaa haduu qofkii dhaga xanuunkii oo sii wato obviously qofkii waxa la rabaa inuu la kaashado dhakhtarkiisa la kaashado because dhaga xanuunka horta serious waaye maskaxda ay ku xiran tahay maskaxda damage ay u geysan kartaa marka qofkii waxa fiican markii ay xanuunkii uu daily u sii noqdo mas continuous oo sii noqdo qofkii inuu dhakhtarkiisa la kaashado soo daawo caafimaad la qofkii oo u helo since aadahay dhaga xanuunka maskaxda ay ku xiran tahay maskaxda damage ay gaarsi kartaa hadana waxay keeni kartaa daily madax xanuun ay keeni kartaa waxa jira dad madaxa uu saaid u xanuunay maxaa keeni kara qofkii dhaga xanuun haduu qabay daily madax xanuun ayuu qabaaya continuous madax xanuun ayaa ku dhacaya hadana garlic waxa qofka kale uu si isticmaali karaa whole clove of garlic markaas dhahay calal ayuu inuu qabsado oo tunti kala jaro ayuu marada inuu ku duubo dhagtisaan iskaga saaraya please sidaan ilmaha yarka yaa loo isticmaalin ma fiicna ilmaha in loo isticmaalo because adiga isku ilaalinaysa ilmaha iskuma ilaali karaan hadana qofkii wuxuu sameey karaa garlic oil ka uu sameystay suuf ayuu inuu ku shubo ayuu qofkii dhagta saar karaa dhagta markuu saarto maxay ka caawi kartaa garlic oil maxay faa'iido u leedahay qofkii inay ka caawiso sida idin soo sheelay garlic oil waxay leedahay maadooyin la antibacterial iyo antiviral properties kuwaasoo ina awood u leh inay dilaan bakteeriyada iyo germska dhagaha qofka galo oo painkiina qofkii oo xanuunkii ka jooji karo hadana waxyaalaha kale ee ka sii caawinayso waxa anti-inflammatory waaye property ayaa ku jiraan kuwaasoo saaid ugu shaqeey karaan xanuunkii inay qofka ka dejiyaan waxaan